ayagoo ooyaya oo dhahaya waana la dili rabay waana la yeeli rabay waana la maaragtay majiijin rabay daroon baana loo adeegsaday xaggaana loo adeegsaday ninka madaxtooyada Soomaaliya madfaca ku soo diray madfaca ku ridayay habeenkaas oo anagu aan deganeyn agteeda ayaa wuxuu leeyahay waa la soo weerar ninka haamaha shidaalka dekada rabay inuu gubo oo 10 mitir u jirsaday hoobiyihii uu riday haamaha magaalada dhan guy lahaa dalku intay ka dhaqaaqeen ruqaansadeen bay tageen iyadoo halis la geliyay wada jirka ummadda way ka soo ruqaansadeen dhammaan dawlad goboleedyada joogaan maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo kooban cadawga khawaarijta ah ee argagixisada inagoo wada jirna ciidamada hiil walaal iyo kuwa kale ee yuusumta iyo ciidanka xoogga dalka ee dawladda Soomaaliya inagoo wada jirna inaan ka qaalib noqon doono maraan dheereen xorriyadda iyo maalmaha madax bannaanida la iskuma hibeeyo hiba maahan la iskuma garto la iskuma dhowro waxaa la isku dhowraa hadba sidaad u feejigan tahay sidaad u soo jeedid sidaad uga shaqaynaysid dalkaadu inuu hagaago waxaan ognahay wili Soomaaliya inay jiraan kuwo damac uga jiro xasilooni darradeeda kuwa lacaga ku bixinaya inay sidii ay sii ahaato kuwa taageeraya argagixisada oo jecleen in la iska qaado kuwa maalin dhaweyto u dambeysay 3 Juun iyo 4 Juun qoryaha loo soo dhiibay oo aan ognahay cidda u soo dhiibtay oo soo fankarays si magaalada caasimadda loo qalqalgeliyo oo qabaa'il mar labaad ay qabaa'il isugu bedesho way jiraan kuwaas maleegaya iyo kuwa Soomaaliya oo soo horkacaya weligeedna way jireen waxaa la yiri 60kii markaan xorriyadda qaadanaynay xisbiyaha magaalada Muqdisho mudaharaad banaanbax ka hogaaminaya dhahaya xorriyad yaana la siin kuwaas ilmahay dhaleen way joogaan hadda waxayna u baahan tahay in weli laga feejignaado waa midda dawladda Soomaaliya soo xasmisay soo gabagabaysay